taariikhdu ahayd 26 bishii Oktoobar 2021 saacadu markay ahayd 12:20 ayaa waxaa soo weeraray degmada Abgooye ciidanka booliiska waxaa soo weeraray cadowga al-shabaab waxaana ku dhacay jabba baa ku dhacay oo aysan ka fiirsan waxaan ugu mahadcelinayaa ciidankii iska difaacay qaarna noloshooda galaafsatay ee al-shabaabka ahaa ee meydkiisa aad u jeediin ciidankaasna waa u mahadcelinayaa taliyaha saldhigga guddoomiyaha degmada iyo dhammaan maamulka degmada ku-xigeenkii degmada Abgooye oo asna nala taagan ee dhinaca amniga isagana waa u mahadcelinayaa shacabka reer Abgooye dhammaantoodna waa u mahadcelinayaa waxaan rabnaa nimankan la soo qalday oo al-shabaabka oo soo weeraray ciidanka oo dhibaatada rabay inay u geystaan iyo argagaxa dadka shacabka saqda dhexe xabadda ku kacshay waxa u dambeeya mid walbaba waa sidaas waxaan la wadigaynaa inaysan mar dambe haddii la soo qaldo inaysan wax wanaaga iyo wax waajibaad ah oo dambe oo wanaagsan inaysan arki doonin cawaaqib xumo inay ugu dambayso dhammaantood waxaan leenahay yaan laydinku qaldin waxa aad la diriraysaana waa ciidamadii qaranka iyo maamuladiinni iyo dadka shacabka ah oo xabada ka durridaysiin wax wanaaga idiin noqon mayso inaad maalin walba intii laydinku qaldo meydkiina aad ka carartaan wax sharafana idima ahan maalin walbana sidaasaa u jabi doontaan insha allah haddii ilaahay yidhaahdo dhammaan shacabka gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan hadda degmada Abgooye waxaan ugu baaqaynaa inay la soo xiriiraan ciidanka haddii ay waxyaabaha noocaas iyo ayagoo soo dhuumaalaysanaya ay arkaan annagu u dhuuman mayno si ka fool ayaan iskaga dhicinaynaa waana iska difaacaynaa haddii ay soo raadsadaan meelaha ay joogaanna waa ugu tegi doonaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waana mahadsantihiin idinkuna hadda waad u jeedeen asagii qorigii booshkii wato way ka carareen ninkan kuwo kaloo dhaawacna way jiideen oo dhiigoodii iyo la dabagalay hadda rag baa ku maqan iyo ciidan baa ku maqan iyo saraakiil ayagana insha allah waa laga warkeeni doonaa haddii ilaahay yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa warka horta waa intuu taliyaha yiri wax yaran baan ku darayaa xalay saacadu markay ahayd 12:20 waxaan soo weeraray ururka nabadiidka ilaahay maadiis ciidankeena foojigan durbadii baa waxa rabood ka helay dadweynihii degmada Abgooye oo nala shaqeynayay soo warlaawnay waad arkaysay meydkii laga reebay ilaa 3 iyo 4 kalena way jiiteen mid midan waa sii qaateen ilaa 3 dhaawacana waa sii jiiteen si noo sheegeen dadweynihii oo kulleed ay marsiiyeen kuwaasna waa sidii hadda taliyaha sheegay ciidan aan ka daba diray ilaa xalay ilaa hadda saacadan ay ku maqan yihiin kulleed waxaan rajeynaynaa sidaan oo kale inay meydkoodii dhaawacooda soo jeedaan iyo kuwa kale iyo kuwa xaleba inay keeni doonaan rajeynaynaa haddii ilaahay yiraahdo ciidankaas iyagoo nabad qaba xarooyinkooda ku soo laabtaan midda kale waxaan leeyahay ninkan dhalinyarada oo mar walba la qaldayay waxay u socdaan iyo meelay u socdaan ba aqoonin waxay nimankan meesha ku sheegayaan diin maaha ummadda la qaldayay waxaan ugu baaqaynaa inay fahmaan dad islaam waaye inay fahmaan diinta saxda iyo midda kale inay kala fahmaana laga rabaa midda kale ciddii rabto inay soo dhiibtana waa nala soo xiriir karaan gacan furana lagu soo dhaweynaya kadibna mustaqbalkiisii ayis dambe si dawladdu uga fikirto ayaan ka ballan qaadaynaa dawladdeena uga ballan qaadaynaa tan kale waxaan degnayn u diraynaa kuwa xalay oo kale inaysan mar dambe degmadan ku soo laabanin hadday soo laabtaan sidaan isi ka daran oo jabka raaci doono tan labaad ciidankii xalay difaacaas ku jiray oo aad iyo aad u foojignaa oona difaacay sharaftii booliska ama ciidamada qalabka sida iyo sharaftii gobolka iyo degmadaba aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa wixii kale oo abaalmarintoodana kulleed anikaas ka wareysan doonaan iyo taliyeena
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddana waxaan kusoo gobolka shabeellaha hoose taliyaha saldhigga dhammaan ciidamadii amniga warbixintii kooban waxaan ka haynaa taliyaasha. waxaan rabaa kaliya inaan u mahadceliyo ka degmo ahaan ciidankii amniga xalay ee howlgalka ka sameeyey degmada afgu iyo cadowga ugu hortagay. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin amniga ka degmo ahaan. waxaan kaloo fariin u dirayaa nimanka waqti dambe oo habeen ah shacabkeena masaakiinka ku dhibaateynayo degmada. waxaan leeyahay mar walba cawaaqib xumada aad heli kartiin waa midaan hadda ujeedaan, marka cid walba isku daydo. waxaan leeyahay shaatigaar ka wada amniga qofna laga wareysama. marka waxaan mahadcelinayaa si gaar ah daraawiishta wax badan hortaagneed degmadan inuu cadow soo raba ka yeesho. haddana aan xali goobjoog u ahayo taliyihii waqti dambe asigoo lugeynayo ciidamadii wata. marka taliya waa mahadsantahaan leeyahay taliya nuur. sidoo kaleetana waxaan mahadcelinaa dhammaan ciidamada amniga oo ka qayb qaatay. waxaan leeyahay nimanka argagixisada al-shabaabna maalin walba haddii aad isku daydaan dad inaad dhibaateysaan dhibkana idin dambeyn doono. anuu ku hadlahay gudoomiyaha degmada afkiisa dhammaan shacabka degmada. waxaan leeyahay amniga waa mahadsantihiin, cid walba isku daydana halkaanay u dambeyn doontaa. wasalaamu calaykum.